السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام صاحب يا الملك استوجبت وسعيد حقاي صاحبكي أحمد سفير. ما أنت واحد وضع واحد عصب أيام وضع هرينا وما نصوب بندقي يا ومركي يقول ريسي وانصوب بندقي مركو حربا حلو ضد قار كومنتي كدودي دونا وان أوجح أنا جن مرونك ما برجع لي بإلهي أمريكي واحد سمي ساعة حتى بوك يقلن أما كالكوليتر كاغا أما وحاجة كل سوق هذا كسوق يعني بابا سوق أحمد وهي سوق هذا مرك في أما فيديو جبوس ده وحاجة سوق هذا مركا كتب شقدان بالله بدونا شقدوا محيتها هذا بس شقدوا محيتها هاي وحن ما أنتو كبرة يا سيدي لو صاري كرا يعني قف كله بشا ولا شيء جانوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر لبي 10 bilood bishee ka dhashay bishu maxay ahayd markaa yani waxaan ku hayaa tusaale ay halkan ku siin doonaa tusaale ahaan aniga waxaan dhashay 10 iyada oo joogta bisha October soo 10 ma 20keedii yani 20keedii 20 iyadoo joogta 20kii October aan dhashay sanad ma haya waa bishi iyo maalintii inta ay joogtay bishi marka waxaad soo saari kartaa qof kale adiga oo qaacidadan aan ku siinay raacaya ayaad soo saari kartaa marka waxaad leedahay qofku waxaan soo saarayaa maalinta aad dhalatay taariikhda inta ay ahayd iyo bisha aad dhalatay diyaar ma nahay okay tusaalan marka meeshan ku qoray tusaalahaas aan rabo marka inaan kuu sharxo haddii ilaahay idmo أحمد سيف عمل الله أركيا صاني حاجة سايستاجوا عادي سيف عمل الله أركيا واي halkan waxaan ku qoray tusaale marka uu ku leeyahay aniga iska soo qaaday markaan iska soo qaadayo qofkaad waxa ku leedahay yani talaabooyinka uu qaadi doono marka saad u fahamto fiiri anigu waxaan dhashay 20kii October 20 ay joogtay maalintaas October marka waxa leega doonayaa yani leega rabaa inaan soo saaro 10kii oo ah 10aad 20kii yani bisha 10aad 20kii 10aad waa October sama October waa bisha 10aad January February March April May June July August September October sama October marka 10 weeyaan bisha 10aad marka waxa laga rabaa bisha 10aad 20kii oo ah maalinta aan dhashay marka tilmaamahan la raacaya marka tilmaamahan ayaa la raacaya okay maxaad ku bilaabaysaa marka waxaad ku bilaabaysaa okay 10kii maxay tahay وبشي طبنا سما بشي أول شيء قفك وأقول فتيشان بشي يعني قفك أول شيء وحلا هذا هاي بشي أدلتي أديك هاي شيء أنيجا هاي شيء بشي أدلتي شن كودفو ترى كوسا بعد سما إيكوال وحقدرتها لح قدر قفك لح بقدره أنا هذا السؤال أهم هذا بفرصته waxaan dhashay 10kii oo bisha 10aad October ah shan ku dhuftay konton ay noqotay 6 baan ku daray Soomaa 6 baan ku daray 6 baan ku daray marka konton iyo 6 marka qofku waxaan leedahay bisha aad dhalatay shan ku dhuf halkaan ku qorantaa bisha aad dhalatay shan ku dhuf 6 ku dar afar yani ku dhufo tirada soo baxday 9 ku dar marka inta joogto waxa lagu darayaa bishi marka bisha lagu darayaa bishi ku daraysa tiradana ku soo baxday hada marka meesha waxa ka maqan sirta wax lagu soo saari lahaa ku sheegi doona ha iga degdegin laakiin marka hore qaacidadan faham qofku waxa ku leedahay calculator kaaga qabso bisha aad dhalatay haday January ahayd ama January February May bish kasta adoon ii sheegin number kati bisha qor hada January oo kale waa 1 February waa 2 March waa 3 taas kala faham tirada qofka tiru qaadanaya waxa leedahay bisha aad dhalatay numberkeeda 5 ku dhufo equal be okay equal le tirada ku soo baxday 6 ku dar tirada ku soo baxday 6 ku dar okay qofku uu ku daray okay haye 4 ku dhufo hadana 4 ku dhufanaya tirada ku soo baxday 9 ku dar 9 ku markaasi hadana ku daraya tirada ku soo baxday 5 ku dhufo 5 ku dhufto okay tirada ku soo baxday taariikhda aad dhalatay marka meeqay joogtay taariikhda aad dhalatay inta ay joogtay ku dar
taariikhda aad dhalatay inta ay joogtay ku dar ma waxaad dhalatay kow may ahayd laba may ahayd saddex may afar macnaha ilaa bishaas kow iyo soddon bay ku dhamaataa soo ma inta ay ka joogtay ku dar tirada soo baxda marka tira usoo bixi doonta sidan oo kale aniga hadda qaacidadeedu waa taa bisha aan dhashay 5 aan ku dhuftay 6 aan ku daray 4 aan ku dhuftay 9 aan ku daray bisha aan dhashay inta ay joogto maalintii ayaan ku daray marka waxa ii soo baxday 1185 haddaba sirta axmedow hadda baan sheegaa mase videoga dabaan ka dhiga sidee noo dhib yar daawayaashana hadda in loo sheegaa fiican waaya okay haddaba sirta aad wax ku soo saaraysid waxay tahay oo aad maskaxda ku haynaysid qofku waxa leedahay markuu intan dhan soo maro tirada kuu soo baxday ii sheeg tirada kuu soo baxday ii sheeg tiradu kuu sheegaya markuu kuu sheego ayaad waxaad ka jaraysaa 165 tiro kasta oo kuu soo baxda waxaad ka jaraysaa 165 okay hadda aniga 165 waxaana laga doonayaa soo ma 5 ka jar eber 8 6 ka jar 2 11 hal ka jar haddaan rabto hal ka jar dheh eber halkana soo deji dhaxda saa u kala maray marka waxaan dhashay 20kii bishii 10aad ayaan dhashay aniga sidaasi ayay sax ku tahay waana 20kii bishii 10aad ما لا فاهمي هذا في عام فيليا صرت مركو waxay tahay 165 ha iska sheegin qofka ha u sheegin hayso qaacidadan soo weydii bisha aad dhalatay inta ay joogtay 5 ku dhufo 6 ku dar 4 ku dhufo 9 ku dar 5 ku dar taariikhda maalinta inta ay joogtay ku dar tirama ku soo baxday ha ii sheeg anaa ka soo dhex saaranaya marka ku sheego 165 ka jar tirada hore waa bishi weeyaan intana waa maalinta taariikhda inta ay joogtay aniga hadda si aan kan waa tusaale si aad u fahamto aan ugu tala garan u soo qaatay taariikhda aan anigu dhashay okay sorry halkan dabaysha ku badan axmed waa filay inaad haysid iyadoo habayso soo ma si fiican baan hayaa okay iyadoo dhan haddaan doono saasaan ka dhigi karaa aniga haddaan ka dhigi karaa soo ma si fiican wata هذا وما ستي صعب وفيليا إلا فهم قاعدة مالك قرطة هني اللوبين إن شاء الله وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله